kulankan ay iskugu yimaadeen qayb ka mid ah aqoon-yahanka waxgaradka bulshada gobolka Awdal ayaa waxa uu xambaarsanaa duco iyo tacsiih loo dirayay allaha u naxariistay injineer Cabdikariin Cige Guuleed oo ku geeriyooday magaalada Ottawa ee dalka Canada. Injineer Cabdikariin ayaa waxa uu ku dhashay magaalada Boorama waxaana waxbarashadiisii ku soo qaatay dalka Soomaaliya kadibna waxa uu ka mid noqday aqoon-yahanadii Soomaaliyeed ee loo doortay hogaaminta dalka waxaana uu agaasime ka soo noqday wasaaradii howlaha guud ee Soomaaliya isagoo halkaasi marxuumku waqtigii uu joogay mashaariic badan oo horumarineed ka fuliyay. burburkii Soomaaliya kadib injineer Cabdikariin Cige waxa uu ka mid noqday xildhibaanadii lagu soo doortay magaalada Carta halkaasina waxa uu dhowr jeer uga mid noqday xubnihii muhiimka ahaa ee ka tirsanaa xukuumadihii ku meel gaarka ee dalka Soomaaliya. Allahu naxariistay injineer Cabdikariin Cige Guuleed ifka waxa uu kaga tagay xaas iyo 7 caruur ah dhammaantoodna waxay Ilaahay uga bariyeen inuu samir iyo iimaan uu ka siiyo. kulankan ducada iyo maartay aan isku nibad walaalkeen adeero injineer Cabdikariin Cige oo maanta maalmihii khayrka badnaa ah oo madartaan malaa'igta iyo maartay sabadii casho u furnaayeen inaan xaggan ugu duceyno walaalkeen oo madartaan aan faatixada u marno maanta jimco maalinteedii kale oo dhintay ayaan xagan asku nimid taasidaas duco iyo madarataanay waxaan maartaanay aan hawada u mareynaa inuu Ilaahay naga aqbalo iyo faatixada kolka insha Allah Ilaahay kulankeenan ducada Ilaahay naga aqbalo waxaan ku soo dhaweynayaa nolosha intaad ku nooshahay waxyaabo badan oo muxuu ahaa wax khayr liyo wax kale wad ku dhex jiro wad arki marka waxaan leeyahay anuu walaalkay Cabdikariin idinku dad yarar baatiin oo ma garanaysiin waxaan ay walaal banahayn oo soo wada nooleyn waxaan wada qabanaynay horta kow waxa weeye bani aadamka Ilaahay wixii uu dambi ka geysto Ilaahay baa cafiya subhanahu wa ta'ala Ilaahu cafi baan leenahay إله عفي يا لنا وحكله يعني قف بني آدم كدوك قالوا دمبي ثانا تينتو النولا وحي إلهي كدقو ضد أي سود عفيين الله كدقو إله كدقو وحويين وحي نمغلينا وعلينا عفية ولكن عبدكريم وحنكو أقاني أنو ونكسو قبقبيني وحويا وحي إلهي دنبي وكقلي إلهي بوهرجوكا ونحرسنيا وحي بني آدم وكقلي وحويا ولا لها وحي نمقلي سامحها دي جرتو ورتوعها أن أمدو كنبت قشيبوها مالكسو صومري يوحو سوق بطيبة وحن أوجها مرقاتكاي إنو دتك كنبت قلي وبني آدم يعني عندي بات أولهين دتك يوها إلهي ونحرستي إلهي مالتي وحن بريا إنه إلهي ودم بداف إنه إلهي سبحانه وتعالى قبري سو النور إن إلهي سبحانه وتعالى جنة سكوكين ودقيو مركا نقول وحن لاهي ولكن رجينا حسيو مرو البحصة إلهي مقرني سو بريا وحكلين قبل كروا انت ما أنت السجع عمل كيسو قاي إنه ينوبه هي والدين وحوبها هي الميسيني محوها هي نقدان الصالحين ولقو برباري والحسوسيو وقرن سابود ونقو سميني وعلى وكله يعني فاملي جيسي أو بلارن وهذا عبد الحكيم مالك كجوج وحوي تير هرت تير بين جود التجي محوها هي ومدة يعني أو أي سوه جنيسو محوها هي وناقة أنكو أركي جريانو وناقة كتليناي مركا waxaan idin tacsibaan idin soo jeedinay oo naga wada dhintay laakiin waxa weeyaan dadkii qaraabadii muxuu ahaa family Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinkana tiir kale Allah idin keeno Cabdikariin Cige ma ahayn qof maanta qoys kaliya ta ka baxay Soomaaliu ka baxay
gobolka awdal buu ka baxay Somaliland buu ka baxay waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu jannada firdawsa ka waraabiyo oo ilaahay qabrigana u waasiciyo kafankana u qaboojo nabigiisi maxamedana la xiriiriyo cabdikariin ciga mar aabahay buu ahaa oo kursiintaydu wax ku lahaa marna walaalkay buu ahaa meesha ay maanta ay go'aana Allah og waxaan leeyahay jannadii Allah ka waraabiyo jannadii Allah ka waraabiyo halkan waxaan u nimidnay tacsi walaalkeen cabdikariin ciga guuleed waxaan moodaa anagu dadka inaan iskaga dhaweyn sababtoo ah isku fiil baan ahay engineer hawlo badanna waan wada qabanay marka waxaan leeyahay waxa muhiimkii waxa weeye ducada wixii samafalay siiyay ilaahay baa uu sameeyay ilaahay baa ka jasaysiin waxaan leeyahay waxaan u duceynayaa in annaga iyo intii garanaysay intii muslimiin ay inta walba samir yimaan naga siiyo kow waan tacsideynaa insha Allah isaga iyo heladu ka baxayba waxaan leenahay ilaahay samir yimaan dhamaantiin haydan ka siiyo dhamaantiin samir yimaan haydan ka siiyo si gaara qoyska iyo qaraabada ciga guuleed ilmaha guuleed dhamaantood waan tacsideynaa waan u duceynaa waxaan leenahay ilaahay jannada firdawsa khawku casuumo ha noqdo marti la jecel yahay sida walaalkeen gudoomiyuu ka dhawaajiyay Shucayb waa saacad qaaliya ku jirta jumcaha saacatul ijaaba ilaahay ha waafajiyo saacada iyada nahay dhamaanteenba sabriya iibaan Allah inaga siiyo isagana qabriga Allah waasiyo dhamaanteen inta meesha fadhida waxaan u fadhinaa tacsi iyo duco dhammaan waxaan ka tacsiyeenaynaa cidda muuqliisa iyo maqalkiisa iyo aqoontiisa iyo shaqadiisa ay dhex martay guud ahaan deegaanada Soomaalidu meel ay deegaanba waan ka tacsiyeenaynaa isagoo ahaa aqoonyahan buuxa oo dadka af Soomaaliya ku hadlo dhan ay garanayaan gaar ahaan waxaan tacsi iyo duco u marinaynaa hawada ehladii iyo qaraabadii ka baxay injineer cabdikariin ciga guuleed gaar ahaan sidoo kale dalka Somaliland oo runtii odayaasha waaweyn oo kamid ahaa deegaanka ah oo wax qabad weyn iyo aqoon ba lahaa waa aqoonyahan buuxa intaas markaan soo dhaafo waa runtii rukni weyn oo naga baxay laakiin xaqa iyo seefta ilaahay waajibiyay cidna kama badbaadayso waxaan ku soo koobayaa ilaahay jannadii ha ka waraabiyo qabrigana Allah waasiciyo waxaan joognaa saacadihii ijaabada ahayd baan joognaa ee maalin jimco ah waxaan joognaa waqtigii rasuulku kaleey salaatu wasalaam yiri saacad baa ku jirta maalinta qiyaamada jimcaha waana culimadu u badinayaan inay tahay saacadan hadda aan joogno ilaa 40 qowl baa ku soo arooray marka saacada imika nabi aadam la abuuray inay u badan tahay ilaahay markaa naga aqbalo hadalka ku dheeraan maayo waa soo koobaya